qaybta wada naga dhageysanaysa ay ku soo dhawaada barnaamijka dood furan dhageystayaal waa barnaamij toddobaadlaha oo dhageystaan maalmaha qabiil maalmaha isniinta arbacada iyo sabtida barnaamijka toddobaadkan halkan waxaa idinkaga soo tabinaya anigoo Cabdulle Maxamed Sheekh waxaa toddobaadkan dhageystayaal barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa mowduuc ku saabsan sida ay ganacsatadu uga faa'iideysan karaan adeega internetka toddobaadkan barnaamijku waxaa martay waa Siyaad Cali Yuusuf oo ka socda shirkadda Ramas software oo kamida shirkadaha bixiya adeega teknolojiyadda ee ka howlgala magaalada Garowe waxaan barnaamijkeena fursad siin doonaa dhageystayaasha iyaguna si ay bal su'aal u weydiiyaan martida barnaamijka maanta noogu ah Siyaad Cali Yuusuf oo ka socda shirkadda Ramas software barnaamijku waxay farsameynaya Cabdi Xamiid anigoo Cabdulle Maxamed Sheekh ayaa barnaamijka halkan idinkaga soo tabinaya ku soo dhawaada mar kale barnaamijka dood furan waa tahay barnaamijkeena ayaan gudagalaynaa waxaan soo dhaweynayaa Siyaad Cali Yuusuf oo barnaamijka maanta martiga wax badanna halkan doonayno inaan wax ka weydiino sida loo faa'iideysan karo adeega internetka dad badan baa laga yaabaa dhagahooda inay ku cusub tahay sidee baa looga faa'iideysanayaa muxuu noqonayaa qaabka looga faa'iideysanayo yaa doonaya inuu ka faa'iideysto bal su'aalahaas iyo su'aalo kale ayaan hordhigi doonaa Siyaad oo maanta barnaamijkan u martino Siyaad ku soo dhawow radio sahan iyo barnaamijka dood furan السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي أبان رنتي كما هذا عبدالله محمد شيخ سودوين تفيعان يو راديو سهن ما ملك راديو سهن يو دمان شغالة أنا وأنهم بلغينيا فرصة دانيسية برنامج كان رنتي سلية قناعستدو أما قناعسي إنترنت كا وحكا حقيقية سيدا لوغا فايدة سنكرو وبرنامج هذا مهمة ورنتي أدان سودوين أنا كقيب قاطو waxaan rajaynayaa in dhageystayaasha iyo dadka ka faa'iideysanaya kuwa ay si fiican uga faa'iideystaan barnaamijka marka hadaan u guda galo for example internetka oo kale markaan nahno wuxuu u baahan yahay in bal loo sameeyo context wax la yiraahdo ama Google Dig loo sameeyo oo internetka warta maxaa ahayd ayaga timi marka tusaale ahaan internetka hadii aan dib u noqono ilaa 95 marka la fiiriyo internetka inta umada ama dadka isticmaali jiray waagaas waxay ahaayeen adu ilaa 16 milyan oo qof 1995 markii statistics la sameeyay 16 milyan waxay badankoodu ahaayeen dad America iyo Europe bay ku ekaayeen maanta waxay maraysaa in ilaa ugu yaraan 3.5 bilyan kala bar mujtamaca adduunka internetka ay ku xiran yihiin ama access u leeyihiin si daily ah oo joogto ah taas waxay ku tusaysaa macnaheedu inuu boqolkiiba 50 ummadda adduunka ku nool ay maanta isticmaalaan internetka isticmaalaan access u leeyihiin xawligaas ama korka uu koray waagaas markii la fiiriyo 1% oo kale populationka adduunka oo kala dhigi kara hadana 50% waxay kaloo expertigu ama dadka khubarada ku ah xagga internetka iyo baaxadiisa isbedelka uu ku socdo ay qiimeynayaan in caalamka oo dhan dadka jooga 7 bilyan ba lagu qiyaaso iyo ay wada access u yeeshaan ama gaaraan internet inay isticmaalaan marka waa meel macnaheedu markii la fiiriyo baaxadiisa ama sidoo u korayay iyo sidoo meel walba caalamka u gaari waa meel aan laga maqnaan karin oo runtii oo xagga internet ganacsiga sidoo waaba asaaska ama bilowga koowaad ee qofka ganacsada uu ka fikiro waxay noqonaysaa inuu internetka uu ku yeesho uu la ku yeesho oo ku jiro online presence inuu yeesho xaliirad hadii kale to macnaheedu wuxuu noqonayaa qof aan jirin ama aan business aan jirin oo kale loo arka caalamka caadiga ah markii qofku wax rabo oo kale inuu raadiyo oo kale ama shay uu masaajid ku soo dhaco isla markii uu internetku kala uu Google gareeya ama search ku sameeyaa bal business kaas hayaya farsamadaas hayaya cilmiga noocaas wixii markaas uu helaya website-yadii ama meelihii shirkadaha kala duwan ee caalamka ka jira ama magaalada uu joogo ama magaaladaas kadib wuxuu akhrisanayaa waxoodii iyo service-ka adeegyada waxay soo bandhigayaan kadib markaas uu wacaya oo qofkii dalab sameynaya ama uu shirkadii la hadlaya oo leeyahay waxaan rabaa waan arkay inaan qabataan balka waran halkaas ka bilaabaya marka hadii aadan ku jirin halkaas ama internet ku jirin khaasatan Soomaali markaan ilaahno ganacsiga Soomaalidu runtii markaad eegto waa international caalami Soomaalidu inta badan waxay soo dhoofiyaan waa East Africa iyo Arab iyo adduunka oo dhan bay ku xiran yihiin markii caadiyan loo fiiriyo moqta marka aad bay iyagu ugu tahay muhiim Soomaalidu inay runtii online noqdaan khaasatan ganacsatadu laba oo kala saarayna ganacsatada waxa tii hore caadi ah jirtay oo inagu naqaano inta badan oo Soomaaliga ah oo
businessyada caadiga ah oo meel meherada ugu tagaysid oo address leh oo guri leh oo meel ku jirta brick and mortar la yiraahdo kuwaas waa ku khasban yihiin inay online noqdaan si maartay macaamiishoodana ay ugu gudbiyaan waxay qabtaan iyaguna ay u helaan macaamiishii oo maartay macaamiil cusub u kasbadaan waxa kaloo jira internetka khaasatan in uu abuuray asaguna fursado badan oo xagga ganacsiga oo aan hore u jirin hadda shirkadaha ugu weyn caalamka runtii markaad eegto ama ugu magaca dheer Google Facebook waxa soo dhan haddaad eegto Alibaba kulli waxay ku dhisan yihiin online way internetka hor ma jirin 20 sano ka hor ma jirin ba hataa maskaxda lagu mahay haddana waa shirkadaha ugu weyn adduunka oo ugu lacagta badan oo ugu baalso marka malaayiin waxa jira fursado oo dadka Soomaalida ah oo hadda u furan oo ay ka sameyn karaan dhalinyarada iyo cid kasta oo macnihii wuxuun haysa aqli ama wuxuun ma taqaana xirfada haysa oo dhan internetka way isticmaali karaan si maartay xirfadooda u baahiyaan una helaan maartay customers iyaguna ay u gudbiyaan business uga sameeyaan iyadana waa fursad kale jirta oo asleenahay dadku wax ka faa'iideystaan waa gartay waa baasan tahay Siyaad Ali Yusuf warbixintaada aad kaga hadlaysay sida ay ganacsatada uga faa'iideysan karaan internet waxaad ka sheekaysay taariikhda internetka isticmaalkiisa isagoo haatan maraya sida sheegtay 3.5 bilyan oo marka la fiiriyo kala bar ah dadka dunida ku nool Soomaaliya marka dib ugu soo laabano kale markaad qiimaysid intee bay leedahay uu ka maraya heerka in Soomaalidu ay ku isticmaasho ganacsiga internetka arintaas waa arin su'aal runtii muhiim ah weeye horta waxa laga fiiriyaa inta badan internetka dad baa daily ba loo taraagereeyaa meelaha connectionka intuu jiro waxa soo Soomaaliya marka la fiiriyo runtii waxa la yiraahdaa aduu ilaa 2% penetrationka ama populationka internet access u leh for example xafiis ugu xiran yahay tusaale ahaan ama guriga ugu jiro oo kale waa la fiirinayaa markii la leeyahay population penetration internet penetrationka ummadda marka Soomaaliya hadda markaad eegto internet society oo kale daatada ay ka hayaan 2% dambuun 3% ana marka waa figure yar oo runtii marka la fiiriyo aad u yar laakiin maadaama fursadihii internetka hadda uu ballaaranayo shirkadihii jiraan waxaan filaynaa inay kororto marka hadda 3.5 bilyan buu maraya adduunka isticmaalka internetka oo hadda dhinaca ka sahlay maxaa isleedahay Soomaalida marka dib u dhac ku keenay inay 2% ka marayaan heerka internetka wax loo kala iibsado boqolkiiba keenay صح boqolkiiba 2 marka leena macnaheedu waxa weeye waa penetrationka ama laymanka xiran oo guriyaha ku jira oo taasna waxa laga inta badan assessment laga sameeyaa shirkadaha naftooda shirkadaha inaga nagu waaweyn oo internetka bixiya police oo kale somtaba soo biirtay Soomaalida kale marka la fiiriyo waxa ku hormuud iyo kuwa kale jira Soomaaliland waa jiraan waxa soo dhan baa la isku celcelinayaa markii la fiiriyo marka in way markii dhinac laga fiiriyo runtii waxaad moodaa inay numberkaas uu yahay misleading markii sida khaasatan loo fiiriyo sababtoo inta badan dadku waxay ka access gareeyaan hadda internetka mobile-kooda ka access gareeyaan oo magaalooyinka markaad baro kala fiirisid meel walba markaad aragto qof walba dhalinyaradii dadkii haweenkii kulli smartphone bay wataan internetka bay access gareeyaan marka xagga marka laga fiiriyo taas dhinaca mobile-ka marka la yiraahdo waxa la dhigi karaa 50% ama 60% Soomaalidu inay haystaan mobile phone oo marka xoogaa kala duwan tahay qaabka loo qiimeeyo laakiin still macnaheedu waxa xoog la saaraa xagga xafiis ama guri ama leen caadi oo internet oo toos u xiran PC ku xirmaya ama laptopki kaasay marka ku saleeyeen hada 2% gaas ama ila iyo wixii u dhow oo kale marka taasna waxa kulli Soomaaliya waa ognahay runtii markaad eegto Soomaaliya u fiirso internetkan la sheegayaba hadda jiro waa intii aan dhibaatada Soomaaliya ku jirtay oo burbu ku jiray oo 91kii markii qamtu dhacaysay internetkii waxaas waxay ahaayeen wax hoose oo still mataqaana aan weli si fiican u hana qaadin internetka la naqaano hadda markii runtii dib loo fiiriyo 94-95 wuu bilowdaba gibiisuba oo wasaadada hadda ama shirkadaha ugu waaweyn caalamka ama in mataqaana uu noqdo wax widespread oo wixii la arko la yiraahdo ruuxan waa wax maartay hawl cusub oo information cusub diibaya ama fursado badan leh xilligaas bilowday shirkadaha ugu waaweyn hadda sida Amazon oo kale markaad eBay iyo 95kii meelahaas bilowday oo ku bilowday marka runtii waxa dhigi karnaa maadaama inuu dhibaato badan ku jirnay oo xaggaas ayaa waxay qayb ka tahay in ay hadda 2% ka gaarno tusaale ahaan hadda ku siiyo wadamada dariskana ah wadanka ugu badan waa Kenya sanadka hore
abriil ayay waxay u dabaaldegayeen inay mataqaanaa 15 milyan oo qof oo Kenya lines macnaheedu internet lines in la xiray ay u dabaaldegayeen ma garanaysaa marka waxa uu macnaheedu 15 milyan oo Kenyaati markii internet ku xirtaan ama line xirto inaguna inuu 2% marayna ama 3% farq weyn baa halka u dhaxeeya marka ma la lihi karaa siyado baahida bulshada iyo marka laga hadlayo kale internet oo kale qiimaha hadda uu ka yahay Soomaaliya kale marka loo barbardhigo kale adduunka inta kale dadku inaysan awoodin in qof walba inuu adeegga ka faa'iideysto صح absolutely taas waa arin muhiim ah weey xagga kharashka sababtoo internetka ugu yar waxaan maleeyaa waa $50 waa 40 gulis 40 way soma $40 iyo konton oo for example oo kale kuwa marka waa badan tahay intii markii la fiiriyo caalamka loo barbar dhigo $20 oo kale macquul bixin $60 oo high speed ah internetku waliba kana 40 konton aan leenahay markii la fiiriyo intii caalamka loo barbar dhigo wali waa hooseeya waliba aad لكن waxaan rajaynaynaa insha Allah sida hadda shirkaduhu ay sheegayaan in internetka speedkiisana uu soo kordho lacagtuna yaraato oo mataqaana fiber optic iyo waxba laga shaqeynaayo marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in arintaas dhawaan laga bixi doono oo si fiican bay u socotaa oo Soomaaliya uu soo gaaray fiber optic kan la yiraahdo high speed ka waa gartay barnaamijku waa barnaamij dot from way anigu Cabdulle Maxamed Sheekh ayaa halkan idinkaga soo tibinaya maanta waxaan kaga hadlaynaa sida ay dadku uga faa'iideysan karaan ama looga faa'iideysan karo adeegga internetka waxaa barnaamijka maanta martiin uga Siyaad Cali Yusuf oo ka socda shirkadda Ramas Software oo xarunteeda magaalada Garowe barnaamijka dhageystayaasha ayaa bardhow siin doona iyagana bal su'aalaha haday qabaan si ay u weydiiyaan Siyaad Cali Yusuf dib baan kugu soo laabanaya su'aalahiga maanta markii la Soomaaliya laga hadlayo especially Puntland ama gaar ahaan Puntland faa'iido intee lag u leeyahay in internetkii dhexdiisa wax lagu kala iibsado xilligaas dadku diyaar u yihiin inay internet wax ku kala iibsadaan horta arrinta muhiimka ah oo fiican inaan si fiican u sharxo waxa internetka in wax lagu kala iibsado oo dadku wax ku iibsadaan iyo in ganacsiga naftiisa uu online business uu internetka soo ku jiro waa kala gaar anu hadda waxaan inta badan aan promote gareyno ama aanu dadka u sheegno waxa weeye horta online presence yeelo marka hore horta hal uu helo yani hadda shirkado waaweyn baa jira waxa jira iskuulo waxa jira xarumo caafimaad waxa jira hay'ado waxa jira lawyer waxa jira mutaqaana dad suugan yahanaha waxa jira aqoon-yahano badan yani kulli marka aad arkaysa xafiisyo badan oo furan oo adeegyo bixiya oo marka tiraado adeegga bixisaan waa kan okay intee uu dhaafsiisan yahay aw internetkii maxaad ka isticmaashaan macnaheedu waa aad buu yar yahay inta ku dhayso website baan leenahay oo halkaas website-ka laga arki karaa waa information bixino waa kaas bixi hore marka hadda waxa aan xooga saareyno ku iibsiga haba dambeeyay marka hore shirkaday ama hay'aday ama mataqaana business oo porto online ki gal oo .com magaca shirkada magaceeda .com ama .so ama wixii porto presence-ga yeelo oo information-ka meesha laga helo for example taasaan hadda maartay promote gareynaa watahay sida hadda ay sheegayso kale arintan in shirkadaha ay yarihiin kuwa adeegga internetka si fiican uga faa'iideysto hadda matala kala xafiisyada dawladda kale qaar baa leh meelo laga soo xiriiro ama website ahaan leh ama bar kale oo ay bulshada ku xiran tahay qaarna ma leh sida xaqiiqada marka dawladda Puntland oo kale hadda hay'adaheedo kale muhiim intee lag u yahay inay leeyihiin hay'ad walba xafiis laga heli karo ama xafiis kasta leeyahay adeeg internet haday halad website oo laga xiriiri karo macluumaadka iyo waxyaabaha ay wasaaraddaas markaas bixiso oo su'aal fiican weeye arintaas runtii waana arrin muhiim ah weeye sababtoo ah internetku waxyaalaha ugu muhiimsan hadda oo dawladdu markii dawladda yiraahdo waxay qabataa inta badan bad information bay bixisaa warbixinay dhiibtaa shuruuc bay dhiibtaa maartay directions bay bixisaa
waxa soo dhan marka meelaha ugu sahlan ama sida ugu sahlan oo dadku ugu gaarsiin karo waxa weeye shirkadda hay'adii dawliga ahayd inay leedahay website leedahay hadda waxaan filaynaa khaasatan shirkadda markaan rabaa software in hay'ado badan oo wasaaradda dawladda ay leeyihiin website leeyihiin qaybtood badan aan samaynay laakiin still saashaygiisa waa runta waxa weeye hay'ado badan oo muhiim ah ayaad arkaysaa oo aan lahayn meel laga helo information laga helo dadku ay kala socdaan kala soo xiriiraan marka arrintaas waa arrin macnihi aad iyo aad muhiim u ah oo e-government baa la yiraahdaa ama electronic government qaybta dawladda marka wax badan oo dhinacaas waa dawladdu waa jirtaa oo gaabisa runtii oo u baahan inay hay'adaha macni ay aad u adeegsadaan waxa diidayso dawladda maxay sheegaysaa ama khabar badiyaysa dadka adeeg badan u sameeyay adeeg badan wuxuu u badan yahay directions tusaalayaal waxa qabta saalayaal waxa la sameeyo wixii markii meel laga xiriiro oo ay ka arkaan kala soo degaan oo loo baahan waa ma tahay in siyad dhinaca kale hadda waxaad sheegtay shirkadda Farmas oo adeeg ku socotay in arrintaas xoog saartay dib hadda shirkadda wax kala gooyay maxay hadda baadooshi talaabooyinka aad ku dhiirigelinaysaa dadku inay wax badan ka ogaadaan isticmaalka internetka si noloshooda wax uga bedelaan maxaa ka mid ah waxyaabaha goolasha iyo anaga goolasha ugu weyn waxa weeye shirkadahan anagu waxaan u asaasnay shirkadda in ummadda Soomaaliyeed aan ka qabtirno xagga technology-da cusub shirkadda waxa la sameeyay 2002 ilaa xilligaasna waxaan u shaqeynay ummadda Soomaaliyeed waxyaalaha aan sameeyno ama aan bixino waxa kamid ah in dhammaan wax kasta qofku u baahan yahay oo shirkaddu u baahan tahay anaga sameeyno for example magaci baan u qabanayna u register gareynaa magaci marka la siiskreeyo ama domain name-kii waxa u register gareynaa haddana hosting-kii ama meeshii website-ku online lahaa kadib waxaan sameeynaa website-kii oo dhameystiran oo nooc doona ah suura waa asagu u raba duu wax ku iibinayo hadduu mid yahay uu data ku ururinayo hadduu yahay mid uu mataqaana subscription lagu sameeyo hadduu yahay mid warbixineed oo news iyo waxaas ku saabsan yahay hadduu ku saabsan yahay mid dawladeed hadduu ku saabsan yahay mid mataqaana hotel oo kale oo macal online kiisi wixii oo dhan leh marka complete kii wixii qofku u baahanayo oo dhan website ama online presence uga baahanayo oo dhan baan sameeynaa system ka qaad ku rabaan oo ugu sameeynaa waxaan kaloo sameeynay annagu hadda shirkada ahaan xagga businessyada waxaan sameeynay systemo hoteelada loogu talagalay oo database ah hoteelada shaqada u sahlaya waxaan sameeynay kuwa ganacsiga hawsha u sahlaya waxaan sameeynay kuwa caafimaadka oo xagga clinics iyo u sahlaya waxaan sameeynay kuwa schools u sahlaya nidaamka u shaqaysan lahaayeen ama daatadii ardayda u maamul lahaayeen iyo dhaqaalihii iyo wax kasta marka shirkadayadu waxyaalo badan oo muhiim ah ayay ummadda Soomaaliyeed u qabatay runtii boqolkiiba 90 anagu ama 99 ba waxaan u shaqaynaa ummadda Soomaaliyeed oo u adeegnaa haddana xafiiska iyo boosaaso iyo garoowe iyo dalkacina insha Allah ma ka furayna marka shirkadayadu aad bay maarta hawsha ugu Soomaaliyeed hada weydiiso inta badan website-da leh yaa idin sameeyay waxa laga yaabaa boqolkiiba 80 inay ku dhacaan Farmas software baa noo sameeyay waa garta marka dhinaca mareegyada kala sameeysan ama wasiirada kale isticmaalkooda kale markaad fiirsi sanadihii hore oo kale iyo sanadahan dambe oo 2015 hadda ugu dambeeyso xagga isticmaalka kale korarka maxaad naga siin kartaa sawir runtii internetku insan sheegnay ban 95 boqolkiiba 1% population adduunka ayaa isticmaalaya haddana wuxuu maraya boqolkiiba 50 muddo 5 sano laga joogana insha Allah si la sheegay dhammaan caalamka oo dhan laga agsi karay marka runtii hadda meelaha uu ka socdo xawliga uu socdo internetka ama ku faafayo waxa kamid ah Africa iyo Asia ba ku maadaama iyagu u dambeeyeen aad boqolkiiba 30 buu kordhaya sanadkiiba inta dad ku soo biiraysa marka arrintan website-da Soomaalida for example hadda markaad eegto xagga news-ka oo kale marka la yiraahdo runtii Soomaaliya macni inta website on news markaad eegto ama hay'adaha warbaahintu ay leeyihiin sida Sahan Radio oo kale waa lama soo koobi karo raadi aan lahayn ama inta website oo jiraan waad garanaysaa dadka Soomaalida caalamka meel kasta ay joogaan waxay inta badan online ama information ka Soomaaliya ka helaan waa website-da ka helaan runtii been waxay rooto ahaatay marka dhinacaas horta waa Soomaalida aad bay ugu horumarsantay xaggaas news-ka meesha ay ka dambayso runtii waxa weeye xagga ganacsiga oo in ganacsigii shirkadii jirtay for example shirkad weyn oo kale baajirta oo yeelata meel laga heli karo information-keeda karo inay online leedahay in mataqaana meel laga soo xiriir karo leedahay inay email-ka isticmaalaysa uu noqdo professional arrinta waxa filayaa waxay si toos ugu socotaa ganacsiyada Puntland oo kale ganacsiyada Puntland aad iyo aad oo aan lahayn barac laga socon karo ama daan shirkad guud oo markaasi
weyn oo laga yaqaan Puntland ganacsigeeda ku baahay meelo kala duwan oo haddana aan lahayn meel laga la soo xiriir karo macluumaad laga heli karo ganacsigaasi waan gartay marka siyadu waxaad ka soo shaqeynaysay dhinaca internetka positive-kiisa haddana markii dhinaca laga hadlo waxa la yiraahdaa internetka isagana saameyn karo wuxuu leeyahay oo negative ah maxaa kamid ah waxyaabahaas marka ilaa wax walba maaha wanaag kaliya laga fiiriyo dhinaca waxay leeyihiin negative barnaamijka horta waxaan rabay xagga internetka iyo isticmaalka ganacsiga inaan ku saleyno laakiin haddii negative-kiisa la fiiriyo runtii negative-ku waa badan yahay waxaad garan kartaa for example hadda waxaad moodaa in si khaasa campaign gaar uu ka socdo dhinaca Facebook oo kale dadku inay waxaad arkaysaa hadda for example mararka la yaabo dad waaweyn oo waxay fadhiyaan meel madaxi ah ama meel maarta la isugu yimaado oo nin walba uu smartphone-kiisa uu salaaxayo oo saas oo qoslayo oo waxyaalo marka waan la sheekaysanaynin oo aan dadkiisa la salaamayna xataa qaybtood oo mataqaana marka xagga wadamada Yurub oo kale iyo markaad eegto waxa laga cabanaya dhalinyarada xaggeeda inay aad u mashquuleen technology-daas oo aad isu dhibaatooyin badan ay mataqaana isku caayeen waxyaalo lagu waxleeyay laakiin hadda Soomaaliya waxaan moodaa dadka waaweyn inay kind of catch up amal oo kale ku jiraan la qabso maadka meelaha qaarkood waxa ku arkaysaa waxyaabaha aad maaragtay waxaad arkaysaa waxyaalo badan oo 20 qof oo meel fadhido oo xataa isla hadlayn sheekaysanayna baad arkaysaa oo dad waaweyn oo cid walba leh wadaad leh oo macallin leh oo dhakhtar leh oo cid ganacsade leh oo magaranaysa marka taa markaad eegto xoogaa macnihii wax la dhihi karo lama yaqaan laakiin waa arin maagtay aad ku soo biirto dadku sheekaysan jireen oo Soomaalidu dad sheekaysto oral society la yiraahdo oo sporeysto oo markii nin walba gees u jeesto oo baashaas waxa laga yaabaa in laba qof wada jooga oo haddana aad isugu dhaweyn haddana ka sheekaysanayaan aaladii baraha bulshada Facebook aan lahaydii Twitter WhatsApp iyo wax la mid ah marka waxa ku gudbinaa dhageystayaal wali waxa la socota barnaamijka dood furan maanta waxaan kaga hadlaynay sida lagu faadeysan karo internetka oo macluumaad badan oo ku jiro dhinaca ganacsi dhinac walba Siyaad Cali Yusuf ayaa barnaamijka maanta martino oo ka socda shirkadda Rama Software shirkad bixisa adeegyada internetka ahaan la sameynta baraha internetka sida website-ka ay isticmaalaan shirkadaha iyo kuwa newska markaasi iyo kuwa badan oo wax badan la xiriira internetka markaan waxa u gudbinaa dhinacaasi dhageystayaasha haddii ay qabaan su'aalo ay weydiinayaan oo ku saabsan dhinaca internetka waxay naga soo wici karaan 8448 oo line golis aan ku celiyo 8448 oo line golis ay naga soo wici karaan waxay sidoo kale fariimahooda ku diran karaan 734632 waa 734632 ay nagala soo xiriiri karaan oo ay ku soo diri karaan message oo kaliya ama fariin oo kaliya haddana waxa dhinacaasi farsamada ayaan u wacnayaa adiniga kundigoodu annabaha waxaana ka ku garataa idsi noolaha rabaa galladaha ilaahay ku gargaara adiniga kundigoodu annabaha waxaana ka ku garataa idinolaha rabaa ulmaale ariyo gaada shabeelkiyo kacalaamaroodiga ee xoogga gaamuray kuula waxay ka tooga waatahay dhegeystayaal isku laabasho wanaagsan dhegeystayaasha ayaa sugayna inay soo wacaan 8448 oo line golis ay naga soo wici karaan waxa kale oo ay fariimo ku soo diri karaan 734632 oo lambar golis oo telefoon oo lambarka 7 ay ka horumarinayaan ay naga soo message ka soo diri karaan waxaan dib ugu laabanay Siyaad Cali Yusuf waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo su'aal kale oo isla barnaamijkeena ku saabsan ganacsatadu sidee bay uga faa'iideysan karaan midna ka soo qaado kale qof ganacsada ayaa doonaya inuu internetka faa'iido badan ka helo maxaa ka mid talaabooyinka la gudboon si uu uga faa'iideysto adeega internetka su'aal fiican weeye su'aashaas runtii horta ganacsada markii la yiraahdo macnaheedu ganacsi waxaan inagu naqaanaa meherad caadi oo furan oo meel loogu soo hagaago marka waxyaalaha ganacsigu
inta badan qofku u sameeyana waxa weeye inuu macaamiil helo macaamiisha hore oo uu soo caadi ugu timi iyo kuwa kale inuu kasbado marka internetka waxyaalaha ugu horeeyo uu ka caawinayo waxa weeye inaad horta de macaamiishaada meel kasta ay joogaanba caalamka oo dhan in lagu ogaado hadduu marka macaamiilkaagu joogo garoowe dhexdeeda iyo hadduu caalamka geeskiisa kala joogaba isku si buu ku ogaanaya fursadda macna internet ku siinaya waa wax maamtay aan limit lahayn weeye ma leh meel ay ku eg tahay ma leh qofka Mareykanka jooga iyo kan garoowe jooga isku si bay ku ogaanayaan marka dad leedahay website ama meel loogu soo hagaago marka tan ugu horeysa waxa weeye inaad horta heshid exposure in lagu ogaado oo lagu arko midda kale waxyaalo waxa jirta su'aal waxa jirta inta badan dadka Soomaalidu ama ganacsatadu anagu markaan muddan ku jirnay waxay u haystaan website-ka ama marka taa website sameeyso shirkadooda yeelato waxay haystaan xayisiis inuu xayisiis kaliya website-ka xayisiis ma xayisiisku de waxa yar oo naqaano daqiiqada oo raadiyo laga sidaayo ama television laga sidaayo oo yar oo kooban ba ku sheegi karta laakiin website-ka waxaad ku sheegi kartaa wax kale waxaad wax intaad kaan buuxsamayo wax alla iyo wixii information oo aad jeceshahay oo inaad ka gudbiso businesskaaga oo wanaagsan oo brandkaaga iyo magacaaga baad ku gudbinaysaa waxaad ku gudbinaysaa si lagu soo xiriir lahaa waxaad ku gudbinaysaa meheradaha imsa meelood ku yaalin oo macnaheedu brancheska sidoo ma dad arkaysaa garoowe boosaaso kalkacyo meelo badan kule branches laakiin still haddana aan lahayn website ama meel laga arki karo dhammaan brancheskooda laga heli karo waxaad ka isticmaalaysaa website-ka email oo professional oo toos oo adigu aad from website-kaaga ku xiran baad isticmaalaysaa oo kala xiriiraysaa caalamkii oo waxa dhacday shirkado badan in intay adduunka la xiriireen oo dhan shirkad weyn baan nahay Soomaaliya ka jirnaa saasaan nahay la yiri okay saada tihiin haye website-kiina ma xagee baan ka buuf kareynaa waxa tii website-ku wuxuu sahlayaa in inaad maartay inaad tahay credibility-gaagu buu kor u qaadaya shirkad jirta inaad tahay oo jirto waxa afka ka sheegtay inay meesha ku jiraan iyo ka badanba ma garanaysaa website-ku 24 hour meel ku furan waa meel aflaanta saac furan oo seexanayn oo ku shaqeynaysa hawsha administration-ka iyo for example qof hadduu ku soo waco oo ku weydiiyo maxaad maartay shirkadda baliisha iga waran aysan noo imo ama maartay waxa shay karto iska yiri laakiin website-kii baad ku refer garanaysaa qofkii website-ka waxaad ku sheegi kartaa waxa doonto waxaad ku sheegi macnaheedu qofka kan jooga dibadda kan gudaha jooga boos isku si buu kula soconaya macaamiishaadii hore oo ku jirtay for example iyo guriga jooga haday u baahdaan inay wuxuun markii ka iibsadeen ama kugu soo noqdaan ama wuxuun waxay jecel inay ogaadaan ma inay mataqaan waxay website-ka haday ogyihiin website-ka galiyaan halkaas information ka helayaan si wanaagsan taasi oo badan yihiin taasi waa information bixin weey goorma la isleedahay waa la gaari doonaan in Soomaalidu ay si online wax kala iibsato aniga maanta waxaan u baahanahay inaan ka soo iibsado ramaas oo kale baan doonayaa anigoo gaarin aan ka soo qaado kale beel fog jooga inaan online wax ugu iibsado kale goorma isleedahay la gaariyaa haddaba waa la sameyn karaa haddaba waa jirta haddaba waxaa jira for example waxaa jira hoteelada oo kale qaybtood website ay leeyihiin website-ka waxa ugu xiran booking system-ka ugu xiran qofka soo leena joogo booking samaysanaya oo roomka arkay available-ka uu booking garaysanaya deedii wixii fix garanay ninkan garoowe jooga ama hotelka isla markii uu arkaya systemka wuxuu arkaya in qofkaas uu booking garaystay marka email bay u dirayaan leeyihiin okay confirm waa ku confirm garan marka lacagta hadduu rabo soo hormarin kara haddii kalena goodwill maartay hadii kalena okay on arrival baad bixinaysaa oo markaas uga bilaabanaya bookingka xilliga moogta date buu qabsanaya marka inta date ka horeysa roomka si banaayay marka arinta hadda xawaaladaha oo kale shirkadaha xawaaladaha systemka ku shaqeeyaan online already lacag iyo transactions ku xidhan online ku baxay marka arinta kaliya hadda Soomaaliya ka maqan waxa weeye qofkii inuu sheegay intuu iibsado lacagti bixiyo oo loo deliver gareeyo kaliya maqan laakiin adeegyadii kale oo dhan online waa already waa lagu sameyn karaa wax kasta for example hadda waxaan ka sheekeynay kaliya businessyada jira oo sida hadduu caafimaad yahay hadduu meel isku yahay hadduu wax kale yahay iyo macnaheedu meel boos loogu hagaago leh tusaalaha يعني دي لو باهدو ما قفكو فرصان قف على laga yaaba inuu yahay qof abwaana oo kale abwaanka duu website inta sameeysto cilmigiisa asagu wixii uu geliyo uu publish gareeyo dad badan ay booqdaan lacag buu ka sameyn karaa soo lacag uu sameyn karo waxa weeye waxa sameyn karaa xayisiis buu ka banners iibin karaa maadaama website-kiisa lagu xirmay Facebook-giisa iyo wixii isku xiraya Twitter-kii wixii isku hagaajinaya system dhan oo sameeysanaya oo asagu uu majaajiladiisa ama gabigiisa ama sheekooyinkiisa wixii ku baahay wuxuu Google-ka oo kale wuxuu leeyahay AdSense baa la yiraahdo oo AdWords oo la maartay xayisiiskooda ku baafinaysid oo iyagana wax ku helaysid marka
hadda dadka caanka ah oo sida Amir Arts oo kale iyo macni aad badan buu ka sameeyaa صح website-kiisa wada gacmida soo dhigayo iyo bannerada iyo garanaysa because intaas ku noqon booqanaysa marka hadda fiiri waxa jira dalkeena lawyer hadda jira melo maxaa tan xafiis lawyer jira oo laakiin xafiis lawyer maxaa tahay waxaad gadaysaa sharci ama talo ama wahalkii mugta haddana website markaas kala hadasho xogaa gadaal isu dhigaya way weli ma garan kulay ha laakiin ma hawaad jaartay already service-ki adu meesha waa ku furan baab adu ku furan yahay noocaas oo kala وصلنا لهذا oo waxaad qabatay oo lagu qofka soo joogo soo joogo qofka dibadda soo joogo laga yaabaa in dib lagu qabto halka arrintii ka tahay halka la soo xiro ku yiraahdo warantaas ii gal nimanka maartay loo yiraahdo ana xaaqi waxayna insiinay laakiin hadii aad meel yar ku xiran tahay oo aan lagu aqoon shaqada arkaysa hadda construction ka oo kale for example ama loo niman engineer ah oo waxay sameeyaan maxaa la yiraahdaa design-ka iyo waxa guryaha dadka u dhisa laakiin waa qalbi ku jiraan oo lama yaqaan adoo inaad taqaano oo hebel kugu sii xiro hebel kugu sii xirto ma ahina meel macnaheedu laga baafi meel laga hagaajin karo malaha weyn waxa weey marka joogto London oo kale ama Washington ama meel kale oo adduunka ah hadaad Soomaaliya uga baahato business guri horta inaad dhisato ku caddarto inaad iibsato meel baad rabtaa inaad la xiriirto qof qaraabo meesha jooga rabtaa inaad business wax meel wax uga iibxuun inaad ka samaysaa rabtaa meesha meel aad ka heshid Google gadaad maanta dabaaraysid wararkii Soomaaliya ugu dambeeyay laga inaa heshid laakiin ganacsi ama shirkada la soo xiriirta ama meel ma leh taasna waxa keenaya website la'aanta hadii website badan lahaayeen shirkadu oo macluumaad badan gelin lahaayeen macni isla markiiba qofka waxa uu soo badan intaas website loo soo bixin oo marka sidee lagu heli karaa marka in shirkadaha ganacsiga arintan ay ku dhaqaaqaan hadda waxaan filayaa inay ku dhaqaaqeen intooda badan hadda step by step maadaama shirkadayada iyo shirkada kale ay dalka joogaan oo xoogaa dadku inta badan waxyaalaha aanu markii dibadda ka shaqeynay sanadkii 2011 baanu Soomaaliya ku soo wareegnay oo soo xafiiska furnay 2012 kana burger waan ka furnay marka hadda ganacsiga macnaheedu qofkii wuxuu rabaa qof uu trust gareeyo uu garanayo oo waxaan u yaqaan waxaan anaga ka qabanay magacii hostingkii kulli designkii kulli wuxuu anaga ku baalkeenayna marka taas waxay keentay in shirkadaha hadda in badan ay soo galaan laakiin wali xilli intii la rabay ama macna sida hadda ku aan ka sheekeynayo kale wali waxyaalo badan iskuulaadka oo kale meelaha xarumaha caafimaadka aad bay ugu dambeeyaan runtii xarumaha caafimaadka taqaano dhan hadda baartid wax internet leh ama website waa yari marka siyado waa dib ku salaamanaya sharaxaadaada arintan hadda la xiriirta shirkaduhu inay sameystaan ama cid walba ganacsi leh inay sameysto bar ama website laga heli karo information-keeda dal iyo dibadda waxaad ii sheegtay hadda inaad adigu dibadda uga timaadeen hawshan shirkaduna ay hadda xarumo furatay ma la dhihi karaa marka dadkii hawshan la rabay inay sameeyaan oo dadkii u soo bandhigaan ayaa yar dadku marka hadday heli lahaayeen meel ay ka heli lahaayeen adeegyada caynkaas oo kale waa hore barnaamijkan u dhaqaaqi lahaa arrintaas ma noqon kartaa arrintaas waa arrin garaway oo run ah oo dadka Soomaaliga wuxuu jecel yahay qofku face to face ba wixii moogtay oo lagu kala gadan karaa adoo lana jooga hadaad tiraahdo waxbaan ku sameynaya waxbaan ku habeynaya waxa laga yaabaa inuu ku yiraahdo warade waxay hadda iga dhuma magaranaysa marka waa run arrintan hadda maaragtay anaguna de waxaan sugaynay fursadaha iyo bal waxaan sadeynay bal internetka iyo connectionka iyo waxa iyo maaragtay say u hagaagaan marka labadii waan shirkada sameynay laakiin inta badan dibadda jirnay oo aan ka shaqeynay laakiin hadda dalkii baan joognaa insha Allah maartay shaqaduna waa socotaa waxaan rajaynaynaa ganacsatada iyo anaga kaliya ma shirkada kale jira iyaguna oo marka laakiin laga tago kala website laga soo waxa jira hadda arkay oo badanaa loo badan yahay dhinaca baraha bulshada kale shirkadu hadda waxay sameysteen page like waxa la yiraahdo Facebook laga dhex sameysto oo ama urur kasta ama hay'ad kasta ama wasaaradda xitaa qaarkood way leeyihiin page lagaas oo dad badan likes badan helaya oo xitaa idinka inaad bixisaan baan ogahay promotion sameysaan taasoo kale iyadoo laftirkeeda door intay ku leedahay aad iyo door weyn bay ku leedahay intii oo social media Facebook Twitter maaragtay iyo wixii la mid ah YouTube oo kale waa meelaha ugu muhiimsan oo business lagu promote gareeyo oo lagu weynayo laakiin aakhirka qofkan waxa la rabaa Facebook-an inaad ku soo xirtid website-kii business page-kii in uu macni website-kii Facebook-kii iyo Twitter-kii iyo YouTube-kii isku xiran yihiin sababtoo website-ku waa address-kii ciwaanka shirkadda
wixii information intii ka badan uu ku helay waxa laga Facebook iska promotions in lagu barto waxa sameeyay iyo mataqaana iyo dadka inaad macaamiisha ku soo xirtid laakiin waa inaad ku integrate garaysaa oo ku xirta mainkii meeshii weyneed waa magaca shirkadda iyo website-kii iyo meeshii lagala soo xiriir lahaa for example hadda shirkadaha Soomaalida markaad eegto runtii waxaad moodaa inaysan u samaysnayn qaabka macaamiisha loo qanciyo oo tusaalaha sababtoo ah inta badan shirkadaha markaad aragto waxaad arkaysaa in xafiis lacag lagu qaaday laakiin xafiis khaas oo la yiri macaamiisha iska leh hadda cabasho qofku wado ama wax ka cabanayo waa yari meel ugu hagaagto male ma garanaysaa marka website wuxuu ka caawin lahaa inay page khaas sameeyaan meel gaar ah sameeyaan oo wixii cabashaa walaal halka ku soo gud soo sheeg waxba ka cabsan maartay dadku marka iska xaroon lahayd ciraan sheegi lahayd garanaysaa marka صح way social media waana meesha asalka laakiin asal waxa ah website jooga online ki adigu aadada shirkadda for example al-ma'ruf oo kale Soomaa ma'ruf.com oo kale inay marka hore inuu jiro oo daatada ku dhantaa information la qabay iyo wixii aad gudbisay maartay website kama aha inaad ku gudbisid wixii aad rabto qofka waxa soo galo inuu jeclaysto ama shirkaddii uu arko waa social media framework waan ogaa in hay'aduhu badana ay iyo dadku way isticmaalaan iyo shirkadaha qaybta marka talaabada marka sameynaysan oo adeegyada aad bixinaysaan kalsooni inta leeg bad ka hesheen bulshada iyo dawladda dhexaleedba aad iyo aad maan ka helay oo dadku aad u soo dhaweynayaan sababtuna waxa weeye markay de arkaan waxay weydiinayaan xagaa joogta adigu shirkadda ma tiidaa oo ciwaankaagu mee وقالنا مركز عوان كاي مركز عفيسكي واكن على كويلا وقالنا بوسان جوجا جروان جوجا قلعين جوجا يا dadkii way ku aaminayaan meesha ay imanayaan way arkaan marka wax badan bay hadda aad kor ugu qaaday runtii loo kale ahaan oo shirkado badan baan hadda already online ki presence u sameynay oo website-da iyo Facebook-da wixii isku xirtay dawladda saas oo kale runtii wasaaradaha badan hadda wasaaradaha badankood dawladda wasaaradaha dawladda kulli intooda badan wax yar maahan waan marinaya qaybaan sameynay iyo qaybo dad kale sameeyeen baa jiraan marka arintaas wax badan bay keentay runtii inaan anagu dalkii nimaadno oo dadkina aan waagas marka idinka ramas ahaan shirkaddu ma leedahay sidaad ay sheegayso kale meelo bulshada ku gudbin karaan dadkeedan ka qaba inay cabasho in ka qabo oo aad taas service ama adeeg u sameeyeen meel ay ka heli karaan iyagoo aan idin imaan in heli karaan idin soo gudbin karaan si online ah website ku soo gudbin karaan Facebook waan leenahay inta way ku soo sheegi karaan email baan leenahay oo main oo wadu adeeg loo qabtay haduu cabasho qabo iyo haduu mataqaana farsamo rabo in loo sameeyo kulli ku soo gudbiyo marka arintaas waa leenahay waa aad waa gartay dhageysta barnaamijka qaybihiisa dambe ayaan ku gudi jirnaa inkastoo dhageystayaal badan aysan soo wacin oo wali aan sugino haddana waxaad moodaa dhageystayaashu inay galabta jiifaan oo wali qaarkood baan laakiin su'aalaha ayaan sii wadan doonaa dhageystayaasha anaa matalaya oo su'aalihii siyaad weydiinaya intii naga soo gaartantaan barnaamijkeena gabagabeynaa waa soo dhaweynaa wixii fariin noo soo diri kara waxay ku soo hagaajin karaan 7346 oo ah fariin kaliya waxay sidoo kale ka soo wici karaan leenka 8448 halloon gulsa ayay naga soo ekaan wali waxaan ku jirnaa barnaamijka dood furan maanta waxaan ku soo qaadanay sida looga faa'iideysan karo internetka siyaad cali yusuf oo shirkadda Ramas software ka socda ayaa maanta martinoga oo halkan wax badan aan ka faa'iidnay aniga dhageystayaasha qadkii ugu horeeyay ayaa soo galay hello عليكم السلام بيس الو أطلق يا أذكر كرقات مقعد هل كان نقص وعست حافظة قروي حافظة وابري مقعد أمان محمد دين لي وبرنامج ولا صعتها برنامج هكذا واحد سؤال أنت دقيساشي وعلي وجهي في المنطقة كذا بدن ما أدري ولا وجه وقصي مركز واحد سؤال internet وما جعلنا ما قرأت واقرت سودوينا ستة عضا وسودوينا عدة عرفة وسودوينا واقرت هذا ما سنده dhageystayaasha hadda kacay waxa laga yaabaa inuu barnaamijka la socon laakiin waa saaxiibka barnaamijka badan naga qayb qaata dhageystayaasha kale waxa soo dhaweynaa kuwan soo wacay 8448 ay naga soo wixi karaan barnaamijka qaybihiisna ayaan ku sii shaqeynaa siyaad ayaa markale dib ugu laabanaya
internetka isticmaalkiisu waxaa la yidhahdaa dadkiisa waxaa ku jira barnaamijyo kala duwan oo hadda markaad ka hadlaysa arrinta kalsoonida la yidhaahdo dadku badanaa waxay dhahaan kartoomaa jiro internetka dadka computeraysa ma garatay oo dadka u sheega maaragtay been oo waxaa lagu diray message lagu soo dirayaa oo laakiin isaga dhigaya inaad maaragtay ama wax ku guulaystay ama adeega heshay marka kuwaas oo kala soo qaybka ma aha in dadku ay kalsooni balaaran ku qabin inay internetka ku dhexweynaadaan ama sidoo kale hadda maaragtay inay aaminaad weyn ka helaan siyadu arrintaas waa arrin jirta weeye oo internetku maadaama uu noqday waxaas another world kale hadda loogu yeeraa mugta caalamkii waxa la yiri laba qaybood weeye caalamkaas presency-ga caadiga aan joogno oo ku socono iyo kan virtualka oo xagga internetka looga jeedo oo mataqaanaa qofka soo gurigiisa fadhiyo uu wuxuu rabo qabsanayo oo shaqaysanayo oo adduunka la xiriirayo oo ma garanaysaa Facebook iyo wixii iyo mataqaanaa uu halkaas ka tabinayo wax kasta marka arrinta waxyaalahan xagga security-ga ama privacy-ga waa waxyaalo jira runtii oo caalamka oo dhan uu arrintaas ogsoon yahay laakiin maadaama internetku uu hadda meeshu marayo oo caalamka hadda transactionska ugu badan ama waxyaalaha la kala iibsado wadamada hadda horumaray ama Mareykan aato Yurub aato Japan waxaas oo dhan online-ka si waxa caadi wax loogu iibsadaa oo xaggi mataqaanaa alaabta lagu iibsadaa xataa qudaarta lagu iibsadaa hilibka lagu iibsadaa wixii gawaari wax kasta tigidhka lagu goostaa wax kasta marka dawladaha ama shirkadaha naftooda iyo dawladda iyo shirkadaha sameeyay waxaan oo hadda inaga dalkeena booliis samtal oo kale amal ayaa maartay iska kaashada xagga security-ga oo waxaan uu kulay maaha wax iska open weeye laakiin haddana open ma oo IBS-ka ama internet service provider hadda duu booliis noo yahay for example way ka goyn karaan khadkaaga check bay ka dhigi karaan mugta marka arrimahaas waa arrimo jira oo xagga spamka ama waxyaalahaas beenta waxaas ugu booliistay waxa sida ugu sahlan oo qofku uga baxsan karan waxa emailka haday kugu soo dhacdo wax u eg suspicious ama aadan macnaheedu ka shakidba iska tirtir marba wuxuu kaaga iman level caadi oo waxa ku guuleystay laakiin waxa ku guuleystay intaas oo bilyan ama habar hebla ka joogtaa intaas ku soo maartay lacag baan qaynaa ku siinayna xeelahaas oo kale waa iska khiyaali waa sheekooyin moogtahay isla markii ba garanaysa inay been tahay marka waa tirtiraysa lacag soo daba leeyahay marka iyo wadamada xataa hadda horumaray UK oo kale sanadkii intaas oo malaayiin ba dad lagaga dhaca waxaas oo waliba dadka waaweyn iyo dadka maartay iska maartay si uu maartay xogaa wax ka siihiin oo kale ma beentaas loo soo diray email been loo soo diray intaas ku guuleysatay markii uu okay yiraahdan waxa la inta lacag soo dir san ku ama noosha akoon marka waxyaalo jira waxaasu laakiin inta badan online-ka marka wax lagu kala iibsanayo inta badan waa secure way waa amni way isticmaalka caadiga oo shirkad marka website leedahay in cid soo weerartana wax dhici kara laakiin hadee sababta lagu soo weeraray maxay tahay maxaa haysataa macnaheedu taas nafteedu waxaas oo dhan systems ka hortaga jira oo antivirus-ki waxyaalihi maartay waa systemada lagu dhisaa hadda oo security-gu waa aad runtii u fiican yahay laakiin wax jira way dhageysayaa soo diray message wuxuu leeyahay haddaan u baahana inaan ka faa'iideysto adeega internetka waxaan ahay ganacsade imisa ayaad igu qaadanaysaa inaan furto website aan ku soo bandhigo macluumaadka shirkadayda imisa ku qaadanaysaa waxba kuma qaadayso lacag ahaan buu ka hadlayaa dhageysahan inuu doonayo inuu ka faa'iideysto si online aan ugu gudbiso horta runtii markii la fiiriyo internetku aad barqiis u yahay waa website-da sameeyntooda markaad eegto wuxuu ku qabanayo iyo kharashka marka hore ka galaya marka hore waxaad u niyeysanaysaa waxaan investment maalgelin way moogtahay laakiin maalgelintaas after sanad kadib maartay waa isbixinaysaa laakiin ma badna $500 for example website complete oo fiican $1,000 2,000 يعني wax saas oo kale taa oo kala hadba baaxadda iyo intuu qof rabo iyo qaabka uu maartay iyo systemska uu rabo bay ku xiran tahay laakiin waxa laga yaabaa $500 inay ku filato inuu website complete ku samaysto within way gudihiisna wixii ay website presence leeyahay oo email-is wixii isticmaalayo caalamka oo dhan halkaas maartay uu yahay waatahay ugu dambeyn barnaamijkana qayb ugu dambeeya soo gaan maxaad marka bulshada ku dhageysanaysaa oo doonaysa inay macluumaad badan ka helaan maxaad ugu dambeyn ayaad fariinta ugu dambaysa noqonaysaa siyad aad iyo aad baa mahadsantiin radio sahan fariinta ugu dambaysa waxa weeye internetku waxa weeye wax aan laga iska qarin karin weeye
yani presencegiisa ama joogitaankiisa qof kasta mobilka wato maartay sida aragtay waa internetka ka isticmaalaya marka ganacsatada waxaan leeyahay ganacsi markaan leeyahayna waa meherad kasta hadday tahay meherad arrin social school ha ahaato caafimaad ha ahaato ka shaqayso mataqaanaa xagga cilmiga ka shaqayso mataqaanaa ganacsi caadi oo furan ha ahaado macni waa meel waxay internetku qof walba awoodtiisa kusoo bandhigi karo ama wax uu yahay waa meel lagu kala xoog weynayn haddaad meel yar oo inta samaysid for example waxaad cuntooyin specialized ah iibisa for example haysaa bas waxaad la tartami kartaa magacyaha waaweyn ama hoteelada waaweyn haddii aad website leedahay adoo meel guri gadaashiisa haddaad rabto jikadu kaaga samaysan tahay baad waxaad samayn kartaa inaad online-ka kusoo bandhigtid waxaa haysid oo tiraahid halkaaga dalbado la fikrinay for example marka waa meel waxa weeyaan lagu kala xoog weynayn runtii oo aad iyo aad qof kasta mid yar iyo mid weynba uu ka faa'iidaysan karo marka waxaan leeyahay ganacsatada khaasatan si businesskiina u hormaro shacabkiina loogu adeego because ganacsatada ka dambeeya shacabka hadda horumarsan oo qof walba jeebku u jiraa oo internetka dadku waa haystaan laakiin ma leh meel uu ka adeegto ama xataa information ka helo marka ganacsatada loo baahan ganacsatada waxaan leeyahay meeshaan kama maqnaan kartaan jamcin kusoo boodo oo online noqda sida ugu dhaqsaha badan insha aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Siyaad Cali Yusuf oo ah qabiir ka socday shirkadda Rama Software oo maantay barnaamijka martinuwaha waxaan kaga hadlaynay sida loogu faa'iideysan karo adeegyada internetka dhinaca ganacsiga waliba Siyaad aad buu mahadsan yahay waana ku mahadsan yahay sida uu barnaamijka nagala qayb galay oo noo soo ajibay anigu Cabdulle Maxamed Sheekh ayaa barnaamijka halkan kaga soo tibinayay waxa ay farsameynaysaa Kawsarkeen tan iyo barnaamijka mid labada inta aynu ku kulmino waxa idin ku dhaafiyaa dhageystayaal sidaas iyo nabadgelyo